كمبوني بيسك ديبين iyaga hadda ku sugan buula xaajina oo ciidankan birjeex baa ugu badan guutada liidada ugu badane shiki badan baa ku jira oo horay baan idin la wadaagay taliyahoodii inkismaayo uu xabsi guri ku ahaa muddo badan kuwa isaga ka hooseeyayna la xidhayba oo ay xidhan yihiin kadibna isaga inta lagu khasbay leeydi markii dambe hadal oo cadee mowqifkaada iyadoo weliba la arkayo in lagu khasbay inuu hadlo kadib markii uu diiday oo uu yidhi war buula xaaji ciidan dawladeed baa jiray anagu waxaan ka wadaa raas kambooni ciidanka dawladda jooge anaga ciidanka dawladda la dagaalami mayno laakiin haddaadna dhahdaan gara oo qoladii khawaarijta la dagaalama horay baan usii soconaynaa oo dagaalka waan sii wadaynaa maanta axmed madoobe wuxuu yidhi seeraanow maxaad iga dhowranaysaa mar walbana markuu xaalku adkaado ragga loo yeedha buu seeraarku ka mid yahay waa nin ma soo noqdo wuxuu waa arab weeye waa lagu adeegtaado ma soo laabto seeraanow soo kac baa layidhi soo kac maxaad dhowranaysaa tuutuhu jaf isku siiya sida hadda muuqaalada idin muuqda sawirada idin muuqdo waftigaa maanta ayaa halkaasi gaadheen waan dul istaagi doonaa xaaladda jubbaland ayaan guud ahaan muuqaalkan ku qaadaa dhigi doonaa ciidanka jubbaland filimka u daaran ee aan laga soo noqon karin ee dhabarjabka ku noqday axmed madoobena iyadana waan idin dareensiinaya xoogaa tusaalooyin baa ka bixinaya ciidanka jubbaland filim baa u daaran filim ninkii daawada ma soo noqonayo arrimo la yaab laa dhacay waa la ceeboobay ciidankeenii daraawiishta jubbaland ee aan ku xisaabtamaynay ee ogaadeen uu horjoogaha u ahaa 13 sano ceeb baan naga raacday ceeb waan ku ceebownay axmed madoobe ceeb buu nabaday soo dhawaada muuqaalka la isaan fogeeya meel dheer ka tuura fogeeya laytana dharka siiya kolley kuwa badan oo axmed madoobe u shaqeeyo afduuban oon caqli badan lahayna way arki doonaan muuqaalkan oo iyagu wuu ku adag yahay inay shargareeyaan ama leeg saaraan laakiin inta soomaalida wanaagsan baa badan fogeeya meel dheer ka tuura insha allahu tacaala aynu ku bilownay horta xaalka jubbaland faraha ayuu ka sii baxayaa marba marka ka dambaysa waxaana loo sii dhawaanayaa axmed madoobe qabashadiisa in gacanta lagu dhigo ayaa loo sii dhawaanayaa haddii dawladdu uusan xoogaa qarashka ay bixinaysa uusan ka dhammaanin xagga ciidamada iyo dhiirigelinta uusan ka dhammaanin oo dadaaladan ay wadaan iyagaa mararka qaar lagu hays qabta aysan xisbiga UPD aysan lagu hays qabanin cid kale loo adeegsan mahayo axmed madoobe walaalkii baa soo qaban midka isaga la dhashay ayaa soo qaban cid maanta rabtay ma jiro xaalku markuu adkaaday oo ciidankii jubbaland intii filim loo daaray oo dawladdu filim u daartay horin iyo guuto isku dhiibayaan axmed madoobe wuxuu la hadlay golihiisa wasiirada raggii ku jiray ee markaas la soo halgamay ee lagu tuhmayey inay xagga dagaalka ku fiican yihiin manaxayaalka ah ayuu horta la hadlay seeraar baa ka mid ah seeraarku markaan ina leeyahay waa doqon dee ninka ragga waxaa la rabaa inuu dee naftiisa u naxo oo markuu arka gebi sii dumaya uu dhinac iskaga leexdaa la rabaa seeraarku waxaa ma yaqaano gala waa la gelayaa dagaal waa yaqaanaa nabad waa yaqaanaa marka ma soo laabta dadka dagaalka badan buu ku jiraa ee aan gabanin buu ka mid yahay ilaan ragga libintooda lama xaqiro axmed madoobe ma dagaalamo laakiin waa nin hogaamin jecelo maantana inuu babowleeyu jecel yahay laakiin ragga dagaalama ee jubbaland xoreeyey cabdinaasir seeraar iyo xoreeyey yaana dhina kismaayo xoreeyey aan dhahne yaan waxa weeye dambi igu noqonin astaqfirullah jubbaland lama xoreynine ragga kismaayo qabtay waa cabdinaasir seeraar ka mid ah iyo ninkii allah u naxariistay macallin maxamed haaba ilaahay jannatul firdaws geeye cabdinaasir seeraar buu ku ooyey war maxaad iga dhowranaysaa war ree cabdillah igu soo duulay war ree cabdillah way ragga duulaankay waa ragga i dhabar jabinaya ragga sidana yeelaya ciidankii Kenyana waa la iga hor keenay anagu shuqul kuma leeyahay baydeen oo maanta waxayba ka bixeen ba saldhigyadii bay ka bixeen raas kambooni ciidanka dawladda inta u dhibeen bay dhaheen anaga ciidanka dawladda la toodo leematadina qabsada saldhigan baa leeydi anagu waa ka baxnay deesh waa noo dhamaad waqti anagu waa nooga dhamaaday xagga Kenya xuduudda u soo laabteen axmed madoobe marka macal garoonkii dhanaay raas kambooni baa ciidanka lagu wareejiyay ajandahana ahaayo de qorshaha iyo heshiiska ahaa inay ciidanka admis ay saldhigyada wareejiyaan taasa marka ay sabab u tahay axmed madoobe markuu xaalka adkaaday Kenyana de marka hore Kenya meesha u haysay oo dabada uu kula jiray Kenyana leeyda adeer anaga ciidanka dawladda federaalka lama dagaalamayna shuqul kuma leeyin kuwaada iyo kuwa dawladda waa ciidan Soomaaliyeed anaga shuruucda iyo sharciga ilaalinayna leeyay oo anaga adiga kuma waxaynayna leeyay xaalkii baa adkaaday seeraar buu ku weeyay war seeraar maxaad iga dhowranaysaa seeraar de tuutihi buu jaf isku siiyay maanta wafti buu qaatay wuxuu gaaray buula xaaji hadii buula xaaji la gaariye buula xaaji yaa jooga
buulaxaaji yaa jooga ciidankii daraawiishta baa jooga buulaxaaji maraaska buniba buulaxaaji maraaska buniba jubbada hoosay tageen xeebtay tageen hebel bay tageen wasiirkii waxbarashada soo kac hadda la koogay wasiir waxbarashada tuuta loo xidhay oo la leeyahay waxa tahay dalka difaac oo dagaal gal baa la leeyahay waa wasiir waxbarashada seeraarku wasiir waxbarashada wasiirka amniga ma aha wasiirka taliya ciidana ma aha waa wasiirka waxbarashada weey ninka tuuta loo xidhay axmed madoobe waxay ku tusinaysaa xaalku meeshu maanta ka marayo jubbalandna farxay ka baxday waxaan u marayn qof ma arki jirtay riyadiisa ilaahay u aqbalo xasan sheekh maxamuud riyadiisa baa horta ilaahay u aqbalaan u maray anu horta dhayal baan u arkay axmed madoobe la soo qaban baan u arkay laakiin hadda waxa ay muuqataba ninku meelu ka jilicsan yahay baa la jirtay ilaa markay lahaayeen gobolka banaadir ay warqada soo saareen ilaa axmed madoobe baan qabanayna ilaa waxay arkayeen ninkan meeshu ka jilicsan yahay meeshu ka liitay ilaa arkayeen ciidanka uma loo dhaxgalay waxayba nimankan daraaseeyeen UPD ninkan inuusan ciidankiiba gacan ku haynin xuquuqna aysan qaadanin ay baabeen waxaa la yidhi ciidanka darajooyin iyo waxa la hoosta looga saaday Khalid baa loo adeegsaday oo deegaanka yaqaano askari walba lambarkiisa ay aba waxa la yidhi waxa la siinaya darajooyin baa la yidhi u taxayaa mawaaladii baa la yidhi darajooyinka ciidanka 13 sano Axmed Madoobe haystay ee laga baaqatay ayaa reer Jubbaland la yidhi qaybinaya arba loo kala orotomay bahal filino marka waxa u daaran ciidanka daraawiishta Jubbaland la yiraahdo dalacsiin darajo qaadasho mishaar qulquli lacagta deebaha iska bixiyaaleey askariga ugu horeeya jiray Jubbaland markuu yiraahdo daraawiishta Jubbaland baa oo warqada Jubbaland baa hay'ad ka qoran halka guutada $250 baa horta lagu salaami qab waa salaantii ugu horeysay fariisa la leeyahay oo jaadkaada gado oo saliida waxa way iska saliidaysa la leeyahay bariisayso oo cambulayso oo waxa la leeyahay halka horta nasaba la leeyahay sheekh magaalada daartiin hoos u gal qoriga inta halka dhigato hadii kale ciidankaas la gal difaaca la gal waa ko muqdisho marka tagto darajadaadi uniform cusub liiska meesha kaga jirto guutada wada shaqeyn lahayd iyo mishaarkaadi hadana $500 qad baa hadana loo dhiibayaan ونمانك حزب قدام الجديد نمانك UPD حسن iyo Hamze horta ciyaar aan wali la ciyaarin bay yay sameeyeen waxa shaxdan dajina shaxdan horta ninkii farmaajaha baa dhigay oo rabay sidan inuu sameeyo laakiin waxa naloo shiday oo Axmed Madoobe marka iyada noo shiday hees gadmaysa oo la yiraahdo mareexan baa duulaan inugu heestaaba marka noo shidnay midda labaad waxba qaban weyday waxa weeye taliyaasha ciidamaduna hawiye iyo rag kale ahaayeen oo ma aysan ahayn niman daarooda waliba ogaadeen kuma jirin marka heestii waxa gadantay labadii heesoo tii farmaajiya tii ninka la yiraahdo Axmed Madoobe tii Axmed Madoobe waaga gadantay laakiin shaxdan hadda ay UPD isticmaalayaan xisbiga dam jidid isticmaalayaan waa shaxdi farmaajo weey farmaajo shaxdan dhigay shaxda marka farmaajo way gadmi weyday oo lugtan ku dhignay oo meelo badan baa lagaga yaacay oo farmaajo ka joog baan dhahnay oo xogaa ogaadeenka duulaan lagu yahay baa la yiro balaya dhinacyada laga soo yeeyay kalbad baxiyo maxay ku madam iyo wixii la asaasay wixii baa la asaasay oo harti iyo ogaadeen iyo waxba la isku jacbursaday oo leeyay kumada nahay baa leeyay saasa marka farmaajo loola dagaalamay shaxdi warqadii uu la soo baxay marka ninkii xasan ahaa wuxuu warqadan say ku gadmi kartaa waagaas ay u gadmi weyday sidan khubaradu baa u fadhiisatay khubaradu fadhiisatay waxay say u gadmi kartaa taliyaha ciidanka lugtaan u dhibna la ogaadeen oo waliba nin reer Jubbaland saameyn kula u dhibno Khalid baa la soo helay waa loo dhiibay darajada loogu dhajiyay yaa loo dhibnaada leeyahay maxaa kaloon ka bedelaa daarood kumadaha naftigiisa ka wada dhigaalay taliyaha booliska waxa la yiri u dhiiba asadiyaano soo qabta waa loo dhiibay haye war maxaa kaloon sameeynaa ragga ciidankan u dirayna halka han noqdaan rag baa la yiri reer Jubbaland oo ogaadeen kulligood ha noqdaan wiilal dhalinyaro ogaadeen inta xidigii lagu taxay baa la yiri orda galaba la deegaankeena maxamed baa sheegi wiilasha la wada hadla askari walba oo horjoogo waa ciidanka Axmed Maxamed Islaami darajooyin heer federaal la siinaya hadda nin aan xidig ba haysanin oo la yiraahdo adiga taliyaha ciidanka taliyaha unugta la iska dhahay afkun looga sheegay oo wax mustaqbal aan haysanin hadii la yiri waraa saddex xidig laad ka bilaabi waxa ka bilaabi gaashaan laad ka bilaabi sareeyo guutaa laga dhigi hogaamiyaha dhan ciidanka laga dhigi hogaanka ciidanka hadii la yiri bal ka warraba dhalinyaradii waa la wada dusay filimkaas horta ciidankii daraawiishta Jubbaland u daaran
heestii Axmed Madoobe hadda uu dib u soo kacsado 2019 kiina shaqay weyday heestii waa laynagu soo duulay way shaqay weyday hawiya inagu soo duulay maalin weedka kiciyay hawiyahan duulaankiisa laba teeram oo Sheekh Shariif iyo Xasan buu wax ku soo cunay filimka marka ay baa cunay oo wala fahmay wala isku fahmay wuxuu yiri ninka la yiraahdo Axmed Madoobe hawiya inagu soo duulay laba teeram buu wax ku soo cunay mar saddexaad uu damcay inuu ku darsado shaqay weyday shaqay weyday hawiyana duulaan ma aha ciidankii daraawiishta Jubbaland waxay dhaheen anaga totally ba dagaal lama galayna ciidan dawladeed baa leeyahay ma macalin Soomaaliyeed baan xabad ku ridaynaa leeyahay ma soconaysa bay dhaheen macquul maaha hadda waqtiga maanta la diray la geeyay meesha la yiraahdo Buulaxaaji aaday waxay u tageen waxa weey ciidankaas Buulaxaaji ku sugan oo tiro badan ayaa waxa looga shaqeeyay in dawladdu ay gashay oo ciidankaas u isbedelay ya aad looga shaqeeyay marka xoogaa bay qaadeen lacagaho meeshay geeyeen oo ninkan baa loo dhiibay waxa la yiri bal inta geeyo inta soo sasaba ciidanka soo sasab waxa loo sasabanaya in raaska booni la geeyo xaga loo qaado saraakiisha halkaan way diideen waxa la anaga xabad ku ridimayna calan Soomaaliyeed hadii dagaal la qaadayo waa kuwa khawaarijta geedkan inoo jiraan iyaga aan dagaal ku qaadna leeyahay ceebtaas horta maanta yaa taagan oo Jubbaland ka taagan Axmed Madoobena fashil iyo ceeb nooci ugu xumayd ba maanta haysata tala fara way ka baxday ninka Jubbaland doonayay oo dulmiga Axmed Madoobe inuu ku difaaco maanta waxba ma yaalo lagu kala tag Axmed Madoobe gacantiisuna ku burburiyo wuxuuna ka dhabay anoo meediya dhaawac wataan ay maadaan meediya dhaawac wataan kismaayo ka bixi hadaad ku faraxsanaydeen hadalka isaga Axmed Madoobe uu yiri ku farxa wataas la kala dhaqaaqiye meediya dhaawaca meeshuu geysan lahaa meeshuu dhigan lahaa waagi hore kismaayo dhigtay meeshuu dhigan lahaa u raadiya lama haya meeshuu dhigan lahaa Soomaaliya ma aha meeshuu meediya dhaawaca Axmed Madoobe dhigan lahaa u raadiya hadduu gacanta ciidanka uu ka badbaado ilaahay idamkiisa laakiin la soo qabtaan rajeynayaan